قلب وناكسن واي سلامي ومركله iyo miskiinkii saaxiibayaal muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo ama galabta videogan waxaan rabaa inaan uga hadlo Soomaalidu waa shisheeye kalkaal Soomaalidu waa yaqaan dhibe Soomaalidu waa geed sarawaab Soomaalidu waa istustusiin markaan Soomaalidu waa leeyahay waxaan sameynayaa in dadka dhan isku qaadayo Sooma ilama qurux badan laftiga in dadka dhan isku qaado laakiin waxaan ka hadlayaa sideen u badannahay maalin dhaweyd nin madow ah ayaa gobolka Minnesota niman booliis ah ay ku direen adduunyada dhan kacdoona ayaa wadan walba ka dhacay oo loogu doodayo ninka xuquuqdiisa kama soo horjeedo dadka madowga ee Mareykanka lagu dhibaateynayo xuquuqdooda in loo doodo waayo anagu waxaan nahay madow oo taa uma jeedo laakiin waxaan arkay kumanaan kun oo Soomaali ah oo ka qayb qaadanaya kacdoonadaas oo si qalbiyan ah qaarkood ay u muujinayaan qaarkoodna malaha ay sameynayaan si show off ah okay ina erayada isticmaalo kuma faraxsani lafteegu laakiin marka community-geena loo eego dhibaatooyinka aynu inagu sameyno ayaa ka badan dhibaatooyinka dadka madowga ah Mareykanka lagu sameeyo maxaan ka wadaa sanadkii hore nin Soomaali ah oo muslim ah oo inaga ah ayaa waxa xamar lagu qabatiyay dab waa la ololiyay kacdoona badan oo Soomaali ah oo muuqday ma jirin waan ka hadalnay social media aad baynu arrinta uga xumaanay waynu muujinay inayna arrinka aynan يعني isku raacsanayn laakiin haddana gudaheedna sidii la rabay ma ahan okay sidii la rabay ma ahan waan ka hadalnay kaliya laakiin way jirtaa dabeecadii nooca ahayd iyo dhaqankii nooca ahaa ee maaragtay dadka la leeyahay waa laga tirada badan yahay ee dhibaato lagu geysto inkastoo aan garanayn meel dadka kan lagu tiriyay oo lagu kala tiro batay beelaha aan hubaysnayn ee waddankeennii joogay siyaabo badan baa dhibaato loogu geystay waxa dhacday in aan xitaa la yiraahdo gabdhaha lagama guursan karo hadda wax sabab ah oo loo muujinayaana ay oo buuran aysan jirin qurbaha markaynu nimid gabdhaheennii waxaa guursaday madow iyo Jamaican iyo dad yow kale oo aynan isku dhaqan baahan kuwa isku diin ahayn kuwo ayaa sixiray oo dhibaatooyin u geystay waxaas oo dhan kama hadli karno hadda inagu joogno magaalooyinkii oo aynu buuxino ayaa dumarkeeni sidii la doono maaragtay loo haystaa xorriyad baa jirta baynu nahnaa oo qof walba isaga xor ah wuxuu sameynayo okay waa doorasho baynu halkaa nahnaa okay laakiin waddankeena waa waddanka kaliya dastuurku waddanku uu ku qoran yahay in la kala badan yahay ama la kala sareeyo Soomaaliya waxa lagu qaybsadaa 4.5 dadkan la leeyahay 0.5 ka macnaheedu maxay tahay xagee baa lagu tiriyay yaa yiri waa laga badan yahay tiro koobtaasi goormay dhacday balna xasuusiya haddii aan anagu ilowsanahay ama anigu ilowsanahay shuruucda waddankeena xukuumadda xildhibaanada wax walba waxaynu ku soo qaybsanaa saami qaybsi ah in la kala badan yahay meel cod ka dhacay iyo meel dad maaragtay lagu tiriyay iyo midna ma jirto laakiin maxaa 0.5 ka looga dhigay 0.5 waxa looga dhigay maadaama loo arkay inaynan markaa hubaysnayn maadaama loo arkay inaynan Soomaalida kale dhibaato u geysanaynin maadaama loo arkay inaysan iyaga dib loo geysto mooyaane cid kale dib u geysanin maadaama loo arkay in shaqooyin badan oo muhiim ah ay bulshada u qabanayeen laakiin inagoo arkay in shaqooyin laga faanayo boorsooyinka sameeyaan kabaha ay sameeyaan kabuhu soo kuwan maaha shirkadaha ugu waaweyn ee dunida Talyaaniga iyo Yurub iyo Mareykanka iyo Turkiga iyo shirkadaha ugu waaweyn ee kabaha sameeya iyo boorsooyinka soo kuwa dunida ugu qaalisan maaha brandiyadoodu soo wax cajiib oo la yaabo maaha in laga dhigo ay waddankeena marka la joogo in qofku uu kabaha sameeyo ama uu sameeyo boorsooyinka waxana idin sheegayo dhan waxa ogtihiin maaha waxaan aydin ogeyn laakiin waxaanu isxasuusinaynaa inaynu nahay geed sarawaab yani dushayna istustus kuwa madow aan arkayba oo reer Mareykan ah oo qaylinaya oo la Soomaalidan istustus ka badan leh iyagoo siyaabo kale uga hadlaya laakiin aniga waxaan arkayaa in dhibaatada inaga dhexdeedna aynu isku sameynayno ay ka badan tahay qof meel jilib lagu dilay ama xabad lagu dhuftay ama isagoo ordaya wax lagu sameeyay dab baynu qabatsinay qarnigan lagu jiro qof bini'aadan oo nool oo muslim ah baynu dab qabatsinay
markaasina xitaa xuquuq loo helin dadkii dhibaatooyinkaa sameeyey waa la xidhay waa laga hadla hadhowna waa lasoo deynaya the end waa lasoo deynaya waayo waxaa loo arkaa in qabiilo hubaysan ay kasoo jeedaan dadka loo haysto dembiyada kama hadlayo kayskii berigaa dhacay keliya laakiin waa tusaale ahaan maalin walba ayuu wadankeena ka dhacaa waxyaabaha noocaas oo kale kacdoono iyo ciddiidan ma jirto war dastuurka wadankeena ayaa waxaa lagu soo sameeyey oo waxaa foosha xun ku dhisan qof bini aadan oo ka hadlaya ma aragta 4.5 diidaya ma aragta arki maysid qofka laga yaabo inuu 4.5 diido waa qof raadinaya xaq kale oo leh 4.5 ka waa lagu dulmiyay wax la mid ah laakiin arki maysid qof leh war dadka kan 0.5 maxaa looga dhiga ma arkaysid war systemkani sax ma yahay ma arkaysid xitaa marka loo eego xagga politically wadanka waxa ka jira dhinaca kale dhaqan ahaanba dee waxaynu nidhahnay dadka noocaasa Soomaali ah walaalka ah kula diina kula dhaqana intaad meeshaad ku nooshahay ku nool afkaaga haysta wax walba aad isla garanaysaan ba waxaa leedahay awowgaaga afartanaad baa beri dameer cunay oo kale ama awowgaaga afartanaad baa beri neef dhintay cunay wax xitaa sal yaraad leh aysan ahayn meel ay ku qoran tahayna aysan jirin marka fariinteedu maxay ku socotaa waxay ku socotaa dhammaantiin dadka maaragtay u qiiroonaya ninka madowga ee jilibka ninka caddaanka ay ku dilay u qiirooda dhibaatooyinka inaga xaggeena ka taagan aynu iska dayno waxa ayna waxba ka qaban karin inaan ka hadalno inagoo arkayna waxaynu waxba ka qaban karno in waxaynu wax ka qaban karno oo aynu indhaha maaragtay mara iska saarayno ama aynu caad iska saarayno waa mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada adigoo kale waxaan qabaa inaad fikradan oo kale aad qabto laftigaaga oo qof ku faraxsanay dhibaatooyinka noocaas ay dadka community-ga geysanayaan ma jiro qof ku faraxsanay ma jiro laakiin waa waxaynu ku ababnay oo waa laynagu dhalo laynagu soo barbaariyey soo garan maysaan marka waa ku mahadsantahay daawashadaada fiidnimo wanaagsan ayaan ku rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu